السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو وعن صاحبيال كسو دhowaad muuqaal cusub. Khataraha ka jira xuduudaha dalalka adduunka waa ay kala daran yihiin, waxaana jira dalal xuduudahoodu in la isaga kala gudbaa ay halis tahay. Maanta waxaan idiin soo gudbinaynaa 6 xuduud dawladeed ee ugu khatarsan caalamka. Haddii aad ku fikirayso inaad ka gudubto ama aad ka tallaawdo xuduudahan aan sheegi doono, waxaan kaaga digayaa inaad ku degdegto go'aankaas, waayo waxaa macquul ah una badan tahay inay naftaada halis gasho. xuduudka Shiinaha iyo Waqooyiga Kuuriya. Shiinaha iyo Waqooyiga Kuuriya waxay wadaagaan xuduud dhererkeedu gaarayso 1416 kiiloomitir, waxaana kala qaybiyay labada webi ee lagu kala magacaabo Yalu iyo Tumin. xuduudka labadan dal ayaa amni ahaan ah mid aad u liita, iyada oo maalin walba ay ka soo tallaabaan muwaadiniin aad u badan oo ka soo baxsada Kuuriyada Waqooyi. 10kii sano ee la soo dhaafay, labadan dal waxa ay bilaabeen inay xuduudka ka dhisaan darbiyo aad u dhaadheer si ay uga hortagaan dadka isaga kala gudbaya xuduudkan. xuduudka Mareykanka iyo Mexico. Dhibaatooyinka ka taagan xuduudkan waa ay ka duwan tahay dhibaatooyinka ka jira xuduudaha aan ka hadlayn oo dagaalka ma dhexeeyo labadan dal. Laakiin dhibaatada xuduudkan ka jirta ayaa ah in ragga daroogada ka ganacsada ay rabaan inay xuduudka ugu gudbaan dhanka kale si ay daroogada ugu gudbiyaan dalka Mareykanka. Ciidanka Mareykanka ayaa halkaas dagaal kula jira ragga daroogada ka ganacsada, waxaana ku dhintay askar Mareykan ah iyo kumanaan ragga daroogada ka ganacsada ka mid ah. meelaha ugu khatarta badan xuduudkan waxaa ka mid ah gobolka lagu magacaabo El Paso Juarez, halkaas oo ay inta badan ku nool yihiin dadka ka ganacsada maandooriyaha una tahriibiya daroogada iyo hubka dalka Mareykanka. waxaa intaas dheer kumanaanka qof ee muhaajiriinta ah oo u gudbaya dhanka Mareykanka, taasoo xuduudkan ka dhigtay mid aad u dhaqdhaqaaq badan. dhererka xuduudka labada dhinac waxa uu gaarayaa wax ka badan 3000 oo kiiloomitir. xuduudka Ruushka iyo Ukraine. 2014kii xuduudka Ruushka iyo Ukraine dhibaato aad u xooggan ayaa ka holacday kadib markii Ukraine ay ku kacday fallaagada bariga Donetsk, kuwaas oo rabay inay ka go'aan Ukraine inteeda kale. sidoo kale Ruushka ayaa isagana gacan siinayay fallaagadaas kuna riixay inay ka go'aan Ukraine. xaalku wuxuu ka sii daray markii Ruushka uu qabsaday jasiiradda Crimea oo in muddo ah raacsanayd waddanka Ukraine. 24kii February ee sanadkan 2022, xiisadii u dhaxaysay labadan dal ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii uu Ruushka ku qaaday duulaan ballaaran dhulweynaha Ukraine, taasoo keentay in Ukraine ay jarto dhammaan xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhexeeyay Ruushka. xuduudka Sacuudiga iyo Yemen. Sacuudiga iyo Yemen waa laba dal oo Carbeed oo daris ah, waxaana u dhaxeeya farqi aad u weyn marka laga hadlayo dhanka dhaqaalaha. Sacuudiga waa waddan shidaal leh oo qani ah, halka Yemen ay tahay waddan faqri ah oo xaalkiisu aad u liito. sidaas darteed, kumanaan Yemeniyiin ah ayaa mar walba ka gudba xuduudka labada dal. arrinku waxa uu faraha ka baxay markii waqooyiga Yemen ay gacanta ku dhigeen fallaagada Xuutiyiinta oo ay Iiraan gacantaha kala leedahay, halka Sacuudiga iyo wadamo badan oo khaliijka ka mid ahna ay bilaabeen dagaal ka dhan ah Xuutiyiinta, taasoo xuduudka Sacuudiga iyo Yemen ka dhigtay goob dagaal oo aad khatar u ah. xuduudkan halista ah ayaa mar walba waxa ay dhibaato ka soo gaartaa tahriibayaal Afrikaan ah oo ay Soomaali ku jirto. xuduudka Hindiya iyo Bakistan. Hindiya iyo Bakistan waa laba waddan oo ay cadaawad dheer ka dhaxayso. masaafada xuduudka kala qaybiyay labadan waddanna waxay kor u dhaafaysaa 3000 oo kiiloomitir. labadan waddan waxaa dhex maray dagaallo aad u qaraar, kuwaasoo salka ku hayo arrimo la xiriira gobolka Kashmir oo ay isku haystaan labadan dal. mar walba oo ay xiisad ka soo cusboonaato labadan dal, caalamka oo dhan ayaa wadnaha farta saara, maadaama labada dalba ay haystaan hubka nuclear-ka, macquulna ay tahay inay isku adeegsadaan. xuduudka labada Kuuriya. waxaa caadi ah in xuduudka labadan Kuuriya, waa Waqooyiga Kuuriya iyo Koonfurta Kuuriya ay kaalinta koowaad ka gasho xuduudaha ugu khatarsan caalamka. labada Kuuriya ayaa waxa ay dagaalamayeen in ku dhow 70 sano, mana aqoonsana midba midka kale madaxbannaanidiisa. xuduudka labadan dal waxay ahayd goob dagaal laga soo bilaabo 1953 oo ahayd markii uu istaagay dagaalkii dhex maray labada Kuuriya oo ay malaayiinta qof ku dhinteen.
xuduudkan ayaa waxaa si weyn u ilaaliya ciidamada labada dal, waana xuduud leh siligyo dhaadheer oo korontaysan iyo miinooyinka dhulka hoostiisa ku aasan, waxaana sidoo kale goobtan ku foorarta madaafiic aad u fara badan. intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa daawadayaal mawduuceennii ahaa xuduudaha ugu halista badan caalamka. haddii aad ka heshay muuqaalka, waxaan kaa codsanaynaa inaad like saarto siina share garayso. mahadsanid. tabinta iyo diyaarinta waa anigoo ah Maxamed Cabdulaahi. intaan barnaamijka xiga ku kulmi doono, nabadiino. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.